Man United calaamadaha noloshu si dhammaystiran ugama soo wada muuqan, laakiin qaar ka mid ah ayay muujiyeen kulankoodii Anfield. Kulankii City ay uga adkaadeen haddii uu ahaa kii ay ugu natiijada fiicnaayeen waayaha Amrom, kana waxa uu ahaa kii ay ugu bandhiga fiicnaayeen. Ruben waxa uu yidhi haddii aanu Anfield sidan ku sameynay, meel walba waynu ku sameyn karnaa. Bruno Fernandesna waxa uu isweydiiyey haddii aan sidan u ciyaari karno, maxaynu u sameyn la'nahay markasta. Waase su'aal dhammaanteen aynan jawaab u haynin, waayo ma jirto cid hubanta ka dhigi karta inay qaabkan joogtayn karaan United. Waayo guushoodii City-ba waxa ay ka dambeysiyeen 4 guuldaro tartamada oo dhan, waxaana ay iska jirayeen inay 4 guuldaro oo xiriir ay horyaalka la kulmaan markii ugu horeysay tan iyo 79. Manchester inkasta oo guul qarka ay u saarneyd uu go'aan gaar ah uu ka qaatay Harry Maguire ilbiriqsiyo uun ka hor dhamaadka, haddana waa kulan tobnaad oo aysan guul ku gaaraynin guriga. Ugu yaraan 558 daqiiqo Anfield ay xilliyo kala duwan ay ku dheeleen, goolal way ka dhaliyeen. Amrom 12 kulan ayuu hadda yahay tababaraha kooxda, waxaana ciyaartan daawashadeedu ay u muuqataa in ugu dambeyn uu helay ugu yaraan qaar ka mid ah kooxdiisa koowaad. Gadaal Nusayr Masraoui, wadaajinta dhexda ee Ugarte iyo Maino, wada doorashada Amad Diallo iyo Bruno Fernandes, horeyna lambarka 9 dood la'aan Højlund. United wali ma caddayn doonisteeda suuqan furan, laakiin Roy Keane ayuunbaa ku guulaystay inuu bandhiga Alexander-Arnold ee ciyaartan Anfield uu suuqa jiha uga sameeyo. Alexander waxa uu dheelay mid ka mid ah kulamadiisii uu ugu bandhiga hooseeyay sanadkan, waxaana garabkiisa United ay ku abuurtay 54% weerarada ay sameysay oo uu ka mid ahaa goosha ay hoggaanka ku qabatay. Liverpool gooshaas koowaad inay ka soo laabato waxa ay ku qaadatay kaliya 7 daqiiqo, waxaana natiijada dhibicda ah ee ay ciyaartan ay la soo laabatay ku noqonaysaa kooxda labaad ee xilli ciyaareedkan dhibicaha ugu badan ka hesha kulan natiijada looga horeeyay 13 dhibcood kadib City oo 14 ka heshay. Islot kooxdiisu ciyaartan tijaabo adag ayay martay. Salahna waxa uu jadwalka goolalinta guud ee horyaalka uu la yimid boos Henry, waxaana uu kulankan uu ka dhigay goolasha uu ka qayb galay sanadkan 30 gool. Salah mustaqbalkiisu ma cadda, laakiin xilli ciyaareedkan halka uu socdo ee ah ku guuleysiga horyaalka way caddahay.